عن أو وناكسن دعوة ديال كسر دوادا برنامج كنا تكنولوجيا دمان وهذا هانو كلا أتكلم بيستان عصب تيشي موضوع إن ما أنت وحن كسر قادم دونا هالبورها سيدوين دون بدلي إلويا قانا جاكما فاقد دونا هالبور نمديس تاريخ ديس يسبدل لذا كلا حتى أرمها صومالي سيدا أسامي برنامج كاس أيان كفاقد دونا موضوع إن ما أنت وشوع هالبور جاكما وحو كل شيء مجال هذا هونشو يشينها السنة دي كون سجال بقول لحني أفرتي وحوها مع الإنجليز balse wuxuu lahaa aragti fog oo ku saabsan awoodda internetka sanadkii 1999 isagoo lacag yar haysta ayuu aasaasay shirkadda Alibaba oo ah madal internet oo u fududeysay ganacsatada yar inay si toos ah ula xiriiraan macaamiisha caalamka tani waxay ka dhigtay Alibaba shirkad weyn oo saameyn ballaaran ku leh ganacsiga adduunka Alibaba waxay bedeshay habka ganacsiga caalamiga ah iyadoo abuurtay suuqyo ballaaran oo online ah oo ganacsatada iyo macaamiishu isku keenay adeegyada shirkadda sida Alipay oo ah nidaam lacag bixin ammaan ah iyo Alibaba Cloud oo bixiya adeeg daruuri ah waxay ganacsatada ka caawiyaan inay si fudud oo hufan u maareeyaan ganacsigooda sidoo kale ay kalsooni ku yeeshaan macaamiishooda Soomaaliya ayaa iyaduna ka faa'iiday Alibaba iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed ay si toos ah uga iibsan karaan alaabo qiimo jaban oo laga keeno Shiinaha Soomaaliya ayaa iyaduna ka faa'iiday Alibaba iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed ay si toos ah uga iibsan karaan alaabo qiimo jaban oo laga keeno Shiinaha waxa kale oo fursad ay u heleen dhalinyaradu in ganacsi online ah ay bilaabaan taasoo abuurtay shaqooyin cusub iyo horumar dhaqaale sidoo kale shirkaddu waxay fududeysay xiriir ganacsatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha caalamiga ah taasoo ka dhigaysa Soomaaliya qayb muhiim ah oo ka mid ah suuqa ganacsiga internetka Alibaba waxay hormuud u tahay horumarinta tiknoolajiyada casriga ah iyadoo adeegsanaysa adeegyada daruuriga ah nidaamka lacag bixinta amniga ah iyo sirdoonka macmalka AI taasoo ka caawisay ganacsatada inay helaan xog muhiim ah oo ka caawisa inay horumariyaan adeegyada iyo badeecadaha ay bixiyaan Jack Ma iyo shirkadiisa Alibaba waxay tusaale u yihiin sida hal-abuurka iyo tiknoolajiyadu u bedeli karaan nolosha iyo ganacsiga adduunka Soomaaliya oo kamid ah dalalka dunida ayaa ka faa'iideysanaya fursadaha ganacsi shaqo abuur iyo horumarka tiknoolajiyadeed ee shirkadahan keentay waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday taariikhda Jack Ma oo ah aasasaha Alibaba kaasoo isbedel xooggan ku sameeyay ganacsiga dunida si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sareeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 544 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub